يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم النفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxay khudbadeena ku saabsan tahay taariikhdii islaamka si kooban intii ka dambeysay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo dhibaatooyinkii dadka muslimiinta ah soo maray iyo sida ay uga baxeen iyo dhibka in haysta iyo waxa inagu raajiyay. shayga la yiraahdo taariikhdu waa waxa nolosha lagu saxo, nolosha ummadaha. sidaa daraadeed quraankeena kariimka ah markuu dadka wacdiyayo wixii tagay iyo waxa soo socda labadaba ummadaha waa ku wacdiyaa. saad ka akhriyi karaysa aayaadka aadka u faraha badan. inta u faraha badan wuxuu quraanku inagu waaninayaa ayaamihii ilaahay ummadaha soo maray. xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta ilaahay wuxuu ku waaniyaa ayaamihii adkaa ee iyaga soo maray ay goobjooga ugu ahaayeen si ay wax uga faa'iidaystaan iyagoo uba soo joogay taariikhda. ummadda islaamka dhowr dhibaato ayaa soo maray. waxa ugu horeysay waqtigu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam, markii abubakar allaha ka raali noqda ummadda islaamka madax u noqday. waxaynu ogsoonnahay carabta intoodii badnayd way ridoobeen. dadkii qaybtii islaamka ku hadhay mooye intii kale oo carabi u badan tahay 3 qaybood bay noqdeen. qolo sanamkoodii iskaga noqdayba oo gaalooba cadaystay, iyo qolo kale iyaguna gaaloobay laakiin waxa nabi noo ah nin la yiraahdo musaylimatul kadaab, meelaha riyaad iyo sacuudiga barigiisa u deganaan jiray oo waqtigii nabigaba nabinimu sheegtay. kaasay yiraahdeen haddii nabi la raacayo kan reerka iyagaanu raacnay, iyana halkaasay ku gaaloobeen. qayb badan oo ka midiina sakadii bay diideen, qaar dafirayba iyo qaar bakhaylnimo ugu adeegay. arrintaasi arrin adag bay noqotay. culamaa taariikh waxay xusayaan Maka iyo Madiina iyo meelo kooban mooyaane intii kala carab waaba iska ridooto way iska noqdeen. abubakar sidiiq allaha ka raali noqdo dowladdu hogaaminaya waa dowlad cusub, may adkaan weli. cadow aad u badanina waa ku xeeran yahay. ummaddii la doonayay inay hareeraha qabtaan halkan ay marayaan. muxuu yeelayaa marka? asxaabtii uu la tashaday. asxaabtii waxay ku go'aamiyeen kuwan gaaloobay garanna waa lala dagaalami, laakiin dadkana shahaadanaya sakada diiday maxaynu ka yeelaa? wijhatu nadari saxaaba ikhtalafat. aragtidii asxaabtu arrintaa way isku khilaafeen oo cumar iyo abubakar baaba ku kala aragti noqday. laakiin xikmaddii abubakar daraaddeed uu ururiyey ummaddii waanu qanciyey. daliiladiina wuu soo qaatay, dadkiisiina wuu mideeyo. sidii baa lagula dagaalamay murtadiintii iyo kuwii sakada diiday. ummaddiina dhan loo wada jiheeyo la isugu geeyey, cadowgiina candhuuftiisa dib u liqay. marxaladaas ijmaaca iyo ururkaasaa lagaga soo gudbay. arrintii labaadna waxay ahayd dilkii Uthman ibn Affan allaha ka raali noqdo. arrin sahlan ma ahayn. waa magaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam, madaxweynihii muslimiinta, iyadii oo ummaddii oo dhammi arkayso asxaabtiina joogto ayaa la gowracay waqti ummadoo dhammi u taagan tahay. si aynu horeba u soo sheegnay weli dowladdii cadowgiina waa ku xeeranyo waa u soo bu'ayaa hareeraha joogay. fitna ka dhex dilaacday dadkii muslimiinta. dhowr sannadood bay socotay. dowladdii islaamku bari iyo galbeed bay u qaybsantay. qayb ciraaq bay fadhidaa, qaybina ardu shaam iyo suuriya. xooggii muslimiintu waa iska hor yimo dhowr jeer baa la dagaalamay. laakiin haddana dadka muslimiinta ah
hidaayadu ilaahay siiyey iyo xigmadooda iyo daacadnimadooda daraaddeed dib baa la isugu soo noqday waxaa yimi shaygii la odhan jiray caamul jamaaca sanadkii midnimada ee asxaabigii qiimaha badnaa Mucaawiya ibn Abi Sufyaan looga tanaasulay hogaaminta saasaa ummadii ay ku midowday oo dowladda islaamka lagu dhiso lagu mideeyay marxaladda saddexaad ee muslimku soo maray 1200 sano aad ka wadaga waxay ahayd iyaduna dagaaladii muslimiinta ku bilaabmay ee loo yaqaanay al-xuruub as-saliibiyya wa harb at-tatar waa qarniyadii shanaad lixaad toddobaad xagga taariikhda hijriga marka la eego casriga waxa u xoog weynaa dowladda islaamka qaaradan Aasiya saddex qarni waxa jira adduunka qaaradan Ameerika iyo Australia ma jirin laakiin saddexdan qaaradood ay magacyada u bixiyeen Afrika, Aasiya iyo Europa. Afrika iyo Aasiya muslimka haystay inteeda badan. Yurubna in badan oo kamid ah haysteen. Xoogga caalamiga ugu weynaa markaa wuxuu ahaa dowladda islaamka. Haba qaybsanaadeen oo dowlado dhowr ah jireen. Waxa soo raacayay xooggii reer Yurub. Nimanka reer Yurub markaa waxay isku dayeen dadka muslimiinta ah inay ka gacan sareeyaan dagaalay ku wadeen loo yaqaan xuruub as-saliibiyya dagaaladii macatab ku dirarka waxay socdeen 200 sanadood 8 dagaal oo culculus ayay ahaayeen oo istaba jooga oo ay ku dhinteen malaayiin qof dhan walba waxa hogaaminayay boqoradii iyo raggii kaniisadda Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga waxa xaqiiqatan ay gaarsiiyeen dadka muslimiinta dhibaato aad u badan dhaxalkiina way qaateen kutubtii iyo culimada islaamku wax badan oo ay qoreen waxna way baabiyeen magaalooyinkii dadka muslimiinta aad bay u kharaabiyeen waxay sadeynayeen uma suuro galin waayo ahdaafta ka dambeysay waxa ahayd dagaal dhaqaale siyaasadeed iyo mid diineed hadafka weynna inuu Qudus ku qabsadaan buu ahaa markay qabsadeen haddana laga soo dhici taariikhda waad ka akhri karaysaa iyaguna waxbay ka qoreen been badani ku jirto dadka muslimiintiina waa qoreen maraajic dhan baynu leenahay oo taariikhda qoraysa dagaalka kale wuxuu ahaa kii ka yimi bariga ay soo qaadeen nimankii la odhan jiray Tataarka Mongooliska loo yaqaanay quwad muuqata ma ahayn waqtigii hore 603 taariikhda hijrigu markii ahayd ayay ka soo kaceen dawladdan yar ee Mongolia la yiraahdo ama Chinaha qayb kamid ah ayay quwadi ka soo bilaabantay si degdeg ah u soconaysa 10 sano intaan la gaarinba dawladii islaamka ay soo gaareen qaybta bariga khilaafadii islaamka way dumiyeen ee Baghdad ka jirtay dadkii muslimiinta intii Afrika mooyaan intii kale way wada gaareen Afrika iyo intan Xijaas marka laga reebo intii kale oo dhan cagtay mariyeen 40 sanadood bay dadka leynayeen waxaan dad u taagan inay wax kharaabiyaan igana oo ooman insaaniyaduna ka maqan tahay 40 sanadood ayaa malaayiin qof ay dileen dagaalkii Baghdad ku soo qaadan oo qura milyan iyo siyaadana gacantooda ku dileen milyanna waxa daacunkiibu ku dhintay ilaahay nasrigiisii waa siiyay dadka muslimiinta ah ka dabinta ay culimadii iyo dadkii hogaamiyayaasha daacadda oo urureen kadib dalka Masar iska abaabuleen dagaal qiimo badan oo hogaaminayo Sayfuddin Qudus ninkii la oran jiray ayaa ka soo kicitimay Ibn Taymiyyah Izzuddin ibn Abdissalaam raggaasi ay hogaaminayeen oo de culimadii ahaa iyaguna Falastiin bay ku weerareen oo lagu jabiyo dimankaasina dib baa loo celiyay 40 sano kadib laakiin dib aad u fara badan boqolaal magaalo adaanay kuma yaalahayna waa kharaabiyeen ummadda islaamkana dib bay u rideen labada qolo waxay ku sigteen inay ka saaraan dadka muslimiinta khariidada caalamka laakiin ilaahay baa markay kufeen soo kiciyay subxaanahu wa ta'ala iyaguna way isdaba qabateeyeen qaloocoodii ayay iska saxeen iyo qaybsankii iyo macsiyadii iyo firqadii loo qaybsamay iyo inxiraafkii ama qalooci dhinaca aqeedada taariikh aad u badan weeyo inuu dul marayno ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay ummaduhu
waqtiyadu ilaahay garab qabanaya inay tahay marka iyagu isbedelaan in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. dhibaatada afraad waxay dhibaatadii dadka muslimiinta ka soo gaadhay andalus qarnigii hore aakhirkiisiiba dadka muslimiintu waa xoreeyeen. waxay qabteen dhulka la yidhaahdo imika Spain, Portugal iyo Faransiiska qaybo ka mid ah. muddo dheer bay ka talinayeen, xadaaradna way ka sameeyeen dadka muslimiintu xagga cilmiga iyo dhismaha iyo horumarka adduunyada, diin iyo dunyaba. waxay ahayd meel aad iyo aad caalamka uga yaabisay, xataa maktabadaha ay sameeyeen iyo horumarka sancada. meel korosyada iyo waxbarashada loo iman jiray bay ahayd. abharat alcaalam albaciida walqariib fii xadaaratiha. mushkiladaha muslimka had iyo jeer ibliisku u adeegsan jiray unba haddana iyagana ku yimi oo waa kuwii qaybsamay. dowlado yaryaroo dhowr iyo 20 ka samaysmeen, qaarkood cadowga kala raaceen siday maanta u kala raaceen. kadibna hal ayaa loo cunay oo qoladii markii hore dhulka laga xoreeyey ay ku soo noqdeen iyo reer Yurub iyagoo iskaashanaya. dadkii muslimiinta halkaa joogay qayb way laayeen, qaybna way adoonsadeen, qayb diintii bay ka saareen, qaybna way ka soo eriyeen. ilaa hadda marka la soo bandhiga masaajidada ka samaysan kumayaalka ahaa Qurtuba iyo Dulaydila iyo meelaha kaleba wax aad u yaab badan weey oo qofka muslimka ah uu la qiiroonayo. masaajidada qaar kaniisada u rogeen, qaarna waxay ka dhigeen meelo dameeraha iyo fardaha lagu xareeyo si dadka muslimiinta loo bahdilo, loo ihaanaysto. sidii bay kaga maqan tahay wadankaasi uu kaga maqan yahay macsiyada iyo dhibaatadii halka ka dhacday daraadeed. xadiirada islaamka iyo khariidadii islaamka waa ka maqan yahay wadankaas. in yar kadib ilaahay nasrigiisii waa keenayo dowladii Cuthmaaniyiinta la oran jiray baa ka asaasantay isla waqtigaaba Turkiya. 400 oo sanadood ba islaamka iyo muslimiinta iyaduna ilaalinaysay. waarcaba duwal alqarb, dowladihii gaalada ee macatabku ku dirirayayna way argagax gelisay. fariidadii jihaadkana waa soo noqday, islaamkiina way ballaarisay ilaa ay waxay naga soo gaadheen dhismayaasheedii iyo dadaalkeedii. xaggaana Yurub bay hore u gaadheen ilaa ay gaadheen meeshan la yidhaha Vienna, caasimadda waddankan Austria. sida odayaasheenuba soo gaadheen taariikh imika laga joogo 100 sano, 4 sano ka dhiman baa filaya. 1924 baa la isugu tegay, iyadana waa tii la riday. ninkii gaalka ah Kemal Atatürk ay madaxda uga dhigeen. wax khilaafo la yiraahdo ayayna soo dabagelin bay yiraahdaan, taana halkaas ay ku dubiyeen iyagoo kaashanaya waliba wadamada islaamka qayb kamid ah. arinta lixaad ee dhibka dadka muslimiinta waxa ahaa fatrada markaa kadib aynu galay qarnigan imika tegay oo ahayd mid ka sii dhib badan waxyaabihii hore. kufitaankii la kufay kicidiisina ay iska adag tahay isbedel in la sameeyaa. marka wuxuunaynu intaa muqaddamada u soo sameeynayna maxay isbedelay. berigii hore waa la kufi jiray, waa la kici jiray, saaynu soo akhrinay. maxaa imika isbedelay? waxyaabo badan oo runtii u baahan inaynu ku baraarugno ayaa isbedelay oo ah thaqaafadeena iyo aqoonteena inaynu ku biirino. oo waxa jira haddii qofku aanu ogaanin cudurkiisu halku ka soo jeediyo halka laga qaniinay, way iska adkaanaysaa inuu dawo helo. waxyaabaha berigii hore jiri jiray waxaa ka mid ahaa dadku marka dhibkaasi uu dhaco dib baa la isu urursan jiray. inay dadku is urursadaan oo mushkiladooda ay saxaan ay toobad keenaanna wax weyn weyn. sidaa aynu mar walba taariikhda ku soo xusaynay tiima jirto. arinta labaad ee dhacday waxa weeye dadka muslimiintu way iskhilaafayeen, laakiin khilaafkoodaasi muu ahayn fi daat alislaam bal kaana fi daatihim. iyagaa sidooda isu khilaafsanaa laakiin islaamka la fahantiisa muu ahayn oo ma ay lahayn islaamku xal wuu yahay ma aha. laakiin hadda taasaa dhacday. waxay imika jira dad kuna abtirsanaya islaamkii oo magaciisii sheeganaya isagiina ka doodaya oo la islaamka qudhiisuba xal ma aha. waana dadka u badan mutacalimiinta iyo hoggaanka. mar haddii dadkii muslimiinta diintoodii in badan oo ka mid ay leeyihiin xalba ma aha, arrin aad u khatar badan weeye hore aan u jiri jirin iyo nasiib darro qarnigan soo korodhay.
فهناك من ينتمي إلى الإسلام وهو عدو له ضد إسلام كي كواب ترسنا يا عدو وقرني صباحي وحسد هذا وشرا مسلمين تو أنت أيش شيء هاي سيستين اللي الدجال ما يدي بكاب بدن يشرا لقيب سمية حتى لو حيو أركيين إنه ومضاها سكه سيا وبعين الإزدراء وحي كو إيجين إنه يددي هدد قالا هدي هين سلبيين تهدي هين من كأكلات تطار كي الدجال ما ين نقاله هنا دمر ليبا مسلم آنو قارين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكاي الله سبحانه وتعالى هذا ضعيفين هنا مرقونين إذن كاسرين بدن مر هدي مؤمنين تهين وأنا وأركتاني من كنا إيه إسلامي مدينة درادت إن كسر إنسان ومضاها كله أرين تاسمي ذي قبين بهاي إن قلنا رنتي ودياشني هرائيو علماء ذي هراء وقتيادو قميسي وينويمي وفدراديني لقن كي وناكسناين كسرنا بهاي هذا قالكم مركو قفكا سو أكبره تي waxa loo arki jiray iyaga ka warramay taqaariirta quraan ingiriiska iyo gumaysiga waxayna Soomaalidu waxa ahaan dad isla weyn oo ninka cad baynaya uu ka darajo sareeyaan isu arkay qoraaladooda ay ku jirtay sameynayeen marka han weynaantii nooca ahayd iyadiina waqtigan dambe waa dhimatay qaal in la daba cararaabay noqotay waliba laga qaato waxa xun waxa wanaagsan iyo waxanba way hayaan horumarka adduunyada laakiin waxa ahayd waxa wanaagsan in laga qaato waxa xunna la iska dhaafo الدين يدقني كصابسنا أخلاقي عقيدة وحي تجابة الدنيا ده هرمرين لا ديرين لقى ساقات ويسوي دارتي أنت حناية ده لقى سواردي أنت ونكسنانا يجابان كو أقولين مركارين تا انقلاب كعكس جاهنا ودعضي أرين تا أفراد ترتاو حوي ضد كمسلمين تا سيدا يوها يستين بريء هو الإسلام كروح دي سوايون نورين ويكبد دلان تاي مكا إلا عيدوا إلى هاي ونحريستين موياني dhaqanka la haysto waxa loo haystaa inuu yahay taqaariid mawruufa oo cibaadadii xijaabkii akhlaaqiyadkii wax badan bay dadku isaga qabaan diin ahaan ba aanay u raacaynin ay u raacayaan inuu dhaqan u yahay daraadeed shaygana haddii aad caado u qabto uu ka duwan yahay markaad cibaado u qabto waa cibaadadu waxay leedahay cusboonaysiin waxay leedahay ruux gaar ah oo jacayl iyo jibba iyo qiira iyo difaac iyo hilimaad bay kaaga baahantay wuxuu markuu caadaya uu ka duwan yahay arrintaasina mid soo biirtay bay noqotay oo dhibteeda leh waxa shanaado iyaduna soo biiro khatar badan ummadaha shisheeye hababkii barigii hore dadka muslimiinta u la dagaalami jireen dagaal kale ku soo cusboonaysiino ka khatar badan oo loo yaqaano ghazw al-uqul aw ghazw al-fikr duulimaadka maskaxda waxa weeye qofkii in loo dhiso oo loo barbaariyo in oo arko ummadaha shisheeye inay yihiin kuwa iyagu sareeya ee lagu dayanayo qofkana inuu hooseeyo inuu aamino horena waa soo baraarujinay taasi markaa waxay keentay dadka muslimiinta ahi inay yidhaahdaan war iyaga dani inoo ahe dalalkeennana ha ka taliyaan idaaradiisa adduunkeennana aanu bandhibano waad arkaysa wax fara badan maanta wixii xaggooda ka yimaadana in la qadarinayo xoolihii dadka muslimiinta inay baanankooda yaalaan duulimaadka maskaxda iskamu iman bayna cashiyatin wa duxaaha habeen iyo maalin laakiin wax laga fikiray buu ahaa waxay yidhahdeen dadkan muslimiinta dagaalo badan baynu ku qaadnay waa ka adkaan la'nahay marka intaynu isku dayno inaynu jirkooda qabanno waxa muhiim ah inay qalbigooda gaadhno aynu qancino dabeetana waxa loo fikiray laba arrimood in aad loo xoojiyo lagu dadaalo manaahijta waxbarashada iyo iclaamka iyo warbaahinta agabka wax lagu baahiyo marka manhajka waxbarashadu agtooda wax sahlan ma aha dadka muslimiinta ee daayartay soo baxaya hadhow madaxda noqonaya manhajka waxbarashada ay qaadanayaan waa inay gacan ku yeeshaan xoogna la geliyo iyo xirfad kaasina markaa wuxuu soo saaraya dad iyaga taabacsan oo inaga inala mid ah xagga muuqaalka iyo abtirsiimada laakiin software-ka iyo barnaamijka ku jira uu yahay barnaamijkii rag kale taana way ku guuleysteen oo ninkii Soomaaliga ahaa gumaysiga kadib dawaa kii ka hadlaya lahaa isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay wuxuu dareemay wixii gaalka uu ku eriyay inuu kan isagiina wato haba iska madoobaadeen ilaa hadda waa mushkiladda haysata daayarteen dabadiya gudaba arinta barnaamijka waxbarashadu oo qofka lagu sameeyo lagu dhiso culays badan bay saareen oo duulimaadka maskaxda qaybaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay taasina barigii hore dadka muslimiinta iyaga caruurtooda gacanta ku hayo diintooda islaamka ay barayeen oo aqoonta saxda lagu abaabinayay taasina waa mid
iyo ka hadda isaguna jira qarnigan u dambeeyaha iclaamka silimaha riwaayadaha dadka wax matala jaraa'idka waxaa barigii hore laga wadi jiray tifiyadii iyo internetkiina hadda bilaa idan bay ku galayaan maqsin walba ilmo walibana indhuhu ku hayaa iyo qof waliba labada arrimood bay duulimaadka maskaxdana u adeegsadeen taas waxay keentay markaa dad iskaba daba cararayo u dhareerinayo iyaga u qaxaya inta heleen inay hubkoodii iska dhigteen iyagu isugu dhiibeen arrinta lixaad ee isbedeshay waxa weeye dadka muslimiinta intay kufeen la kicilaa yihiin gaalada waxay ku dadaaleen inaanay u soo noqonin dowladoodii islaamka ee centralizedka ama dhexe ee markasiga ahayd ee ka dhaxayn jirtay khilaafadaasi waxa la yiraahdaa inaan dib loo soo qaadin khilaafadana waxa ku xidhnaa arrimo dhowr ah in shariicada oogaan in jihaadka ay oogaan iyo ukhuwa caalami iyo walaaltinimo caalami inay jirto oo dadku ay isku xidhan yihiin waxay u sameeyeen waxa la yiraahdaa xuduudo oo aad garanaysa iyo qowmiyado iyo jinsiyado ayaa dadkii loo qaybiyay dadku uma qaybsana bay yiraahdaan marka gaalo iyo islaam laakiin wuxuu u qaybsan yahay jinsiyado marka aad haddaad jinsiyadan tahay jinsiyadaada iyo jawaaskaaga iyo xadkaaga baad ilaashanaysaa kuwa wadankaa joogana waad iska celinaysaa muslim ba ha ahaadeen gaalo iyo muslim waxay doonayaan ba ha ahaadeen marka qadiyadii jihaadka iyo walaagii caqiidada diinta islaamkuna daaqadu ka baxay waa ta aad arkaysaa muslimku maanta qolo waliba kuwa xiga bay la dagaalamayaan oo ay leeyihiin xadkayagii bay kusoo xadgudbeen mushkilatul xad halkay ka timi iyo halkay dabada ku haysaa rag baa ku nastay oo kaga raystay jihaadkii iyo hawlihii lagu hayay idan markaa arrimahaas oo dhami marka la isu geeyo lixda arrimood waxay keeneen kufitaanka dadka muslimiintii kufeen ama sababa loo noqday dhibaatada daakhili iyo khaarijiba way leedahay wax dadka muslimiintu gudahooda iyagu ay sabab u yihiin iyo wax shisheeye uu ku sameeyay intaba way leedahay marka kufitaanka in hore loo soo kici laayahay taasaa sababtay qofka muslimkiina xusbaankiisa iyo fikirkiisa inuu arrintaa ku hayo aad bay muhiim u tahay markuu taariikhda ka fikirayo markuu ka fikirayo mushkiladda dadka muslimiinta haysata qaybsanka dagaalada dhexdooda kooxaha qabaa'ilka waxaan oo dhami mushkila mukhtalaq arrin la abuuray inay tahay iyaguna ay aqbaleen inaynu ogaanaaba aad u muhiima kadibna marka tashkhiisu daa qabla dawaa marka cudurka la muujiyaabaa dawada loo gudbaa dawaduna waa wax inoo yaala inaynu ka wada fikirno oo ilaahayna inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waxaanaynu luminay ama laynaga lumiyey iyo alaabtan qaaliga ah ilaahay ummadda uu ku ciseeyo in dib lagu noqdo walillaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun arrintaa aynu dul marnay waxay dawo ka tahay markaad gaarkaaga u fadhido ee qof shahaabad lahoo raganimo lahoo humuum caalamiya xambaarsan aad tahay aad warwarka muslimka iyo dilkooda iyo dhibkooda ku haysta aad ka fikirayso waxyaabaha aad ku taxliilin karayso ayay ka mid tahay inaad asalka mushkiladda ogaato kadibna la iska waraysto maxaa xala quusanna mayne waxaynu ku qanacsannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka inuu barbar taagan yahay ay tahayna ummatun tamrudu walaa tamuut ummad bukooto laakiin aan dhimanin sidaaba hore aynu soo arkaynay nasrigiisuna uu iman doono insha allahu tacaala allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة